kulankan oo lagu xoojinayo wada shaqeynta wasaaradaha maaliyadda, arrimaha gudaha, golayaasha deegaanka dalka guud ahaan ayaa ka qabsoomay xarunta wasaaradda horumarinta maaliyadda. Kulan howleedkaasi ay goobjoog ka ahaayeen maayarada cusub ee degmooyinka dalka, mas'uuliyiinta sare ee wasaaradda maaliyadda. Waxa ujeedkiisu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa wada shaqeynta, tayeynta adeeg bixinta iyo xog wadaagga labada dhinac. Intii shirku socday waxaa si gaar ah la isku dul taagay muhiimadda ay u leeyihiin qodobadani horumarinta adeegyada dowladaha hoose ee dalka. xisaab celinta iyo fududeynta nidaamka bixinta kabka dowladaha hoose. waqtiga sii deynta kabka dowladaha hoose in la waafajiyo nidaamka fulinta iyo dabagalka miisaaniyadda dowladda. fududeynta iyo dedejinta sii deynta lacagaha maamul daadejinta ee wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka. in la yeesho kulamo waqtiyeysan si loo sii xoojiyo wada shaqeynta iyo dabagalka fulinta qodobada la isla qaatay. dambayna wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa dhowaanahanba ku howlanay dardargelinta iyo casriyeynta hanaanka maamulka maaliyadda, qaadista wada shaqeynta ay la leedahay hay-adaha kale ee dowladda, gaar ahaan dowladaha hoose ee dalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo muhiim u ah tayeynta adeeg bixinta iyo horumarinta degmooyinka dalka. Ismaan Axmed, Saab TV, Hargeysa.